rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo wasiir saaxiibkay Axmed Macalin Fiqi wasiir gaashaandhigga Soomaaliya oo shalay wax aanan marnaba nin siyaasiya aan ka filanayn surprise iga dhigay magaalada bartankeeda laamiyada waaweyn ee magaalada Muqdisho midkood anigoo dhex maraya waxaan la kulmay baabuur Cabdiya Bilyaalo oo 6-5 aan ku qiimeeyay iyo baabuur bulletproof ah oo hal mar wadada bartankeeda istaagay iyo nin intuu albaabkiisa ka furay igu yeeray magacayga Xabiib markii aan xagiisa aadayna wiilada ilaalada soo degtay kadibna wuxuu yiri ka leexda ninka waa saaxiibkay Axmed Macalin Fiqi waxa uu shalay sameeyay sida uu surprise ka walaaltinimada saaxiibtinimada uu tusay marnaba kama filayn siyaasi Soomaaliyeed oo sida u dhiiran oo sida dadka u marxabeyn kara oo sida saaxiibtinimo u tusi kara oo sida kalgacayl u tusi kara oo sida dadka u xurmay waligii Ilaahay ma filayn Muqdisho aan jooga kama dhacdo min siyaasiya oo Soomaaliya inuu adiga magaalada kugu qaabilay inuu telefoon ka qabto iska daayay inuu magaalada bartankeeda inta istaago ku yeero oo kugu salaamo halkaas waxay ugu noqdo wax aan caadi ahayn Axmed oo wasiirka gaashaandhigga wadankan saaxiibkay way waqti aad far badan isnaqaan 17 sano isnaqaan fikir siyaasadda kala duwan laakiin wayga uu shalay sharfay iyo xurmeeyay iyo qadariyay iyo qiimeeyay marna ma ilaawi karo kuwa anigu aan deegaanahan kala soo jeedo magaaladan waligii xurmadaasi xaq dhowrka kama helin qof ay la kulmaan iyo qof ay soo dhaweeyaan qof ay sharfaan iyo qof ay xaq dhowran waligii ma arag telefonkana dad kama qabtaan marka nin aan kala fikir duwan oo kala siyaasad duwan oo inta istuuriyeenno inuu magaalada bartankeeda ii istaago oo ilaaladiisa iyo wixii oo dhan ma aragtay oo sida ay qadariyay waxay u noqotay wax surprise ah kama dhacdo siyaasiyiinta Soomaalida sida ay dadku qalbay waxaan qirayaa Axmed inuu yahay xabiib nin saciima nin khayr badan nin wanaagsan nin xurmiye xaq dhowr leh aad waygu shalay la dhaqmayna marna ma ilaawiyo noloshayda inta noolahay aad baan ugu faraxsanahay khibradda yeelis nin intelligence wadanka soo xukumay wasiirka arrimaha gudaha wadanka soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda wadanka soo noqday haddana wasiirka difaaca wuxuu shalay tusay inuu yahay wasiirkaygii saaxiibkay iyo nin aan dadkiisa ga dhawanahay